Hey guys, kusoo dhawaada English with Mima. Maanta waxaan idin wada cashir wada sheekaysi ah. Intaan cashirka bilaabin ka hor fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe dheh, video like garay. Sidoo kale soo diyaarso buug iyo qalin aad ku qoranayso ereyada cusub ee kaaga soo baxa cashirka. Una samee jumlado nagulana wadaag qaybta comments-ka. Waa kula fiirin doonaa. Haddana cashirka aan bilaabano. Wada sheekaysiga maanta wuxuu ku saabsan yahay laba qofood oo deris ah oo isbaranaya markii ugu horeyso kulmaya. Waxaa wada sheekaysanaya John iyo Sarah. Hi there. I don't think we've met before. My name is John. John ayaa sheekada bilaabay wuxuu leeyahay hi there. I don't think we have met before. My name is John. Wuxuu leeyahay hi there. Hi there yani qof aadan aqaan marka salaamaysa waxaa leedahay hi ama hi there. Hey oo kale oo dhigmata, okay? I don't think we have met before. I don't think uma malaynayo we have met before. Ina hore u kulannay uma malaynayo ayuu yiri. My name is John. Qofku isbaraya wuxuu leeyahay marka magacaygu waa John. Hi John, nice to meet you. I'm Sarah. Sarah ayaa u jawaabtay waxay leedahay hi John. Hey John, nice to meet you. Barasho wacan yani barasho wanaagsan. I'm Sarah. Aniguna waxaan ahay Sarah. Nice to meet you too, Sarah. Are you new here? John wuxuu yiri nice to meet you too. Sidoo kale barasho wanaagsan. Sarah, are you new here? Inta ma ku cusub tahay ayuu yiri. Are you new here? Inta ma ku cusub tahay? Yes, I just moved here last week. How about you? Have you been here long? Sarah waxay leedahay yes, ha, oo inta waan ku cusbahay. I just moved here last week. Waxay leedahay yani isbuucii hore ayaan inta usoo guuray. Moved guurid waaye. Moved guurid waaye pastigeeda moved. Isbuucii hore ayaan inta usoo guuray ayay leedahay. Last week waa isbuucii hore. How about you? Adigana iska waran ayay leedahay. Have you been here long? Inta wax badan miyaad joogtay yani. Have you been here long? Inta wax badan miyaad joogtay ayay leedahay. I've been living here for about 3 years now. What brought you to the city? John ayaa u jawaabay wuxuu yiri I've been living here for about 3 years now. Wuxuu leeyahay inta waxaan ku noolaa muddo 3 sano ah. I have been living here waxaan inta ku noolaa for about 3 years. Muddo ku dhow 3 sano. What brought you to this city? Maxaa magaaladan ku keenay ayuu Sarah weydiinayaa. Magaaladan maxaa u imaaday ayuu leeyahay. I got a new job at a tech company nearby. I'm really excited about it. Sarah waxay tiri I got new job. Shaqo cusub waxaan ka helay a tech company nearby. Shirkad tiknoolajiyad ayaan shaqo ka helay oo meelahan ku taalo. Shaqadii ay u soo dhawaanaya marka sidaas inta ku imaaday ayay leedahay. I'm really excited about it. Aad ayaan ugu xamaasadeysanahay shaqada. That's great. What do you do? John wuxuu yiri that's great. Taasi waa mid fiican. What do you do? Maxaad qabataa? I'm a software developer. How about you? What do you do? Sarah waxay tiri I'm software developer. Waxaan ahay software developer. Kuwa softwareda oo horumariya ayaan ahay. How about you? Adigana iska waran. What do you do? Maxaa qabataa ayay tiri. I work as a graphic designer. It's a lot of fun working on different projects. John wuxuu yiri I work as a graphic designer. Waxaan u shaqeeyaa sida graphic designer oo waxaan ahay graphic designer. Wuxuu leeyahay it's a lot of fun working on different projects. Aad ay u fiican tahay uu leeyahay in projectyo kala duwan aad ka shaqaysid. That sounds interesting. Do you work for a company or are you freelance? Sarah waxay tiri that sounds interesting. Taasi waxay u muuqataa inay tahay arrin xiiso leh. Do you work for a company or are you freelance? Waxay tiri do you work for a company? Shirkad miyaad u shaqaysaa? Or are you freelance? Freelance waxaa la qofka iskiis u shaqaysto. Waxay tiri marka shirkad miyaad u shaqaysaa mise waxaa tahay freelance qof iskiis u shaqaysta miyaa tahay? I work for a marketing firm downtown. Do you like your new job so far? John wuxuu leeyahay I work for waxaan u shaqeeyaa ayuu leeyahay marketing firm. Shirkad waxaysiimaha sameysa ayaan u shaqeeyaa oo leeyahay oo ku taala downtownka. Do you like your new job so far? Sarah ayuu wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahay do you like ma jeceshahay ayuu yiri your new job shaqadaada cusub ma jeceshahay so far ilaa hadda shaqadaadii cusbeed ma jeceshahay ayuu leeyahay John. Yes, everyone has been really welcoming and I'm enjoying the work. Do you have any tips for? Sarah waxay tiri yes ha. Everyone has been really welcoming. Qof walba wuxuu ahaa mid soo dhaweyn badan and I'm enjoying the work. Sidoo kale tadna waan ku raaxaysanayaa ayay tiri shaqada. Do you have any tips for living in this city? Wax oo tips ah waxa ay soo jeedinaysaa miyaa jirtay tiri oo yani magaalada ku saabsan? Definitely. There are some great restaurants and parks around. I can show you around sometime if. John wuxuu yiri definitely. Hi, amal ayuu dhigmata. Yes, ayuu dhigmata definitely. There are some great restaurants. Waxaa jiro maqaayadooyin fiican ayuu yiri and parks. Park waxaa la xadiiqada ama meesha beerta ayaa park lahaa. Wuxuu leeyahay marka maqaayado fiican iyo parks fiican ayaa meelahan ku yaal oo yiri
I can show you around sometime if you'd like. I can show you around. waan kusoo tusi karaa ayuu yidhi meelahaas sometimes marmarka qaar if you'd like. haddii aad jeceshahay ayuu yidhi marmarka qaar inaa kusoo tusaaba laga yaabaa. That would be awesome. I'd love to get to know the area better. Sarah waxay tiri that would be awesome. taasi way fiicnaan lahayd. I'd love to get to know the area better. waa jeclaan lahay ayay tiri meeshana si fiican usii barto. Great. How about this weekend? John wuxuu leeyahay great. waa arrin fiican. How about this weekend? ka waran dhammaadka isbuucan. That sounds perfect. Thanks, John. Sarah waxay tiri that sounds perfect. taasi waxay u muuqataa mid wanaagsan. Thanks. mahadsanid. John oo mahadsanid ayay leedahay Sarah. No problem, Sarah. Looking forward to it. John wuxuu yidhi no problem. dhib ma lahan. qof markuu thanks ku dhaho waxaa ku jawaabi kartaa no problem. Sarah dhib ma lahan ayuu yidhi looking forward to it. waan sugayaa. cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay. fadlan videoga like garee. hana iloobin inaad jumladaha noogu soo qortid qaybta commentiga haddii ay jiraan mawduucyo kale oo aad rabtid inaad ka hadlo igu reeb qaybta commentiga. That's it for today. See you in my next video. Bye guys.